shir-sanadeedkii koowaad ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Koonfur Afrika ayaa mar kale ka furmay magaalada Cape Town isla waddankan Koonfur Afrika. Waxaa shirkaasi lagu qabtay markaska cusub ee markaska Sunnah ee ku yaala xaafadda Bialval, iyadoo halkaasi ay muxaadarooyin diini ah ay ka soo jeediyeen mashaayikh Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Maxamed Cabdi Umul, Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli iyo waliba Sheekh Maxamed Idriis Axmed oo dhammaantoodba ka yimid waddanka dibaddiisa si ay wacyigelin guud ugu sameeyaan Soomaalida ku dhaqan waddankan Koonfur Afrika. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jiray rag, dumar iyo waliba caruur oo dhammaantoodba diyaar u ahaa in ay si niyad sami ah ku dhageystaan muxaadarooyinka isdaba joogga ah oo ay culimmadu soo jeedin doonto. daqiiqada yar ka hor inta uusan bilaabanin shirka ayaa waxaa kelimado kooban goobta ka soo jeediyey odayaal dhaqameedyada, mas-uuliyiin ka socotay jaalidaha Soomaalida ee Koonfur Afrika iyo waliba taliyaha ciidanka booliska ee xaafadda Bialval. walaalayaasha iyo akhyaarta waaweyn oo hortayada fadhida oo Soomaalida ah oo halka ka soo qayb gashay oo rag iyo dumar leh, akhyaartii baxday oo islaamka matalaysay, komishinarka Shiburi, General Shiburi, kulligiin waan idin salaamaya. Sheekh Maxamed Umal, Sheekh Maxamed Shibli iyo Sheekh Maxamed Idriis aanu halkaan ku soo dhaweyno, diyaarna ugu noqono inaanu ka faa'iidaysano. waxaan idiin sheegnaana waa dardaaran oo berriba waan dhimanaynaa. waxaan noo habboon marka inaan wax aad noo xusuusataan haddaan dhimanno idin idhaahno. waxa keliya aan idin leenahay waxaa weeye ilaahayna ka cabsada, gacmaha isqabsada, haysiyasina, ninna hayasina. ninkii aad arkaysaan inuu lunsan yahayna ha tuurina. shirkan ayaa 25 December si rasmi ah uga furmay magaalada Johannesburg oo muxaadarooyin qayim ay ka soo jeediyeen culimadaasi Soomaaliyeed oo alaaba dadaal badan ku bixiyo sidii ay u wacyigelin lahaayeen bulshadeynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida dacaladeeda. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.